بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخالد حسين جامع علمي كاب.com waxaan kugu soo dhaweynayaa casharkan ama daawashadan oo ku baran doono xaglaha loo yaqaano complementary angles, xaglo foodsaar ah ama xaglo isquuminaya. Haddaba sida chanchuskan aad ku arkaysaan, xagasha A iyo sidoo kale xagasha B marka la isku daro wadartooda waxay noqonayaan ama cabirkooda waxay noqonayaan 90 degree ay noqonayaan. waa laba xaglood oo isquuminaya. Haddaba xaglaha labada xaglood iyo wixii ka badan ee wadartooda noqonaysa 90 degree, xaglaha waxa la yiraahdaa xaglo isquuminaya ama xaglo sidkan. Haddaba si aad ku arkaysaan tusaalahan, waxaanu soo saari doonaa qiimaha x. mar allaan marka qiimaha x aanu soo saarno, waxaanu heli doonaa xagashan cabirkeeda oo u taagan 3x iyo sidoo kale xagashan cabirkeeda oo u taagan 2x. si aan haddaba aanu u soo saarno, waanu furfuri doonaa. waxaanu leenahay haddaba xagasha A B C waxay ku leegtahay 3x. sidoo kalena xagasha D B C na waxay ku leegtahay 2x. waxaanu haddaba leenahay 3x plus 2x waxay ku leeyihiin 90 degree. waayo xagashan iyo xagashan kale laba xaglood wadartoodu waxay noqonaysaa 90 degree. hadda labada marka la isku geeyno waa laba tibxood isku mid ah, waxay noqonayaan wadartoodu 5x waxay ku leegtahay 90 degree. haddaba dhan walba 5 u qaybi si aan u helo qiimaha x aan helo. haddaba x waxay ku leegtahay sidaa darteed 18 bay ku leegtahay oo degree. haddaba halkan markan u baahannahay dhinaca x hadaa soo saartay 18 hadaa soo saartay degree, halkan waxay ku leegtahay marka labada isku dhufto wadartoodu waxay noqonaysaa 54 degree bay noqonaysaa. xagan kalena waxay ku leegtahay 2x markan 18x ku bedesho waxay ku leekaanaysaa 36 degree bay ku noqonaysaa. haddaba labadan aan isku geeyno waxay noqonayaan xaglo isquuminaya ay noqonaysaa oo wadartoodu ku leekaanayso 90 degree ku leekaanayso.